qarnigii 19 tartan kulul oo ku saabsan ka talinta dooxada webiga Nile iyo dalka Masar ayaa ka dhaxeeyay Ingiriiska iyo Faransiiska oo muddadaasi xoog weynaa. tartankaasi wuxuu markii dambe ku fatay واسداسي مدداسي اي حوغغاسي شيشيها اهي شيغانayeen ee damaaciyeen geeska Afrika dalka Ethiopia oo xukumay boqorkii magaciisu ahaa Menelik waxa uu isna duulaan ku balaarinayay xuduudihii uu markaasi dalkiisu lahaa sanadku markuu ahaa 1996 oo iminka laga joogo 83 sanadood ciidamadii Ethiopia waxay ka adkaadeen Talyaaniga oo ay ku dagaalameen tuulada loo yaqaan Adwa ee waqooyiga dalka Ethiopia. Talyaanigu markaasi wuxuu ka soo duulay gobolka Eritrea ee uu gumaysan jiray markii laga soo jeestay dagaalkii Adwa ee ay Ethiopia ku adkaatay ayaa Talyaaniga Faransiiska iyo Ingiriisku waxay dhammaantood heshiis la saxiixdeen boqorkii Ethiopia ee Menelik. heshiiskaasna waxaa ka dhashay aqoonsi uu Menelik aqoonsaday dalalka reer Yurub sheegashadii ay sheeganayeen xeebihii ay dadka Soomaalidu deganaayeen markaasi boqor Menelikna waxa loo aqoonsaday oo loo saxiixay dhulkii xeebta ka duruqsanaa oo gobolka Ogaadeenyana uu ku jiray. haddaba afarta dawladood ee Faransiiska, Ethiopia, Ingiriiska iyo Talyaaniga arrinta u suura gelisay in ay kala googooyaan ummadda Soomaalida waxa ay ahayd Soomaalida oo aan muddadaasi lahayn dawlad qura oo xora amaba nin kaliya oo xukuma waxayna markaasi ahaayeen qabaa'il kala qaybsan oo gooni u kala deganaa. taasina waxa ay gargaartay dalkii shisheeyaha ahaa ee soo dhexgalayay Soomaalida markii dambana kala qaybsaday. Ingiriisku wuxuu dhiiriyay markii la dhisay xisbigii SYL sanadku markii uu ahaa 1946 wasiirkii arrimaha Ingiriiska ee la oran jiray Ernest Bevin waxa uu ku taliyay in la sameeyo Soomaali weyntaasi waxa Ingiriisku uu ku taliyay in lagu daro gobolka Ogaadeniya. Ingiriisku waxa uu doonayay in Soomaali weyntaasi in muddo xanaano loogu dhiibo jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa maamulka guudna uu Ingiriisku hayo si dalku xanaaqad ugu noqdo gobonimo. hase ahaatee hindisahaasi waxaa diiday Faransiiska, Mareykanka iyo Ruushka oo muddadaasi gacanta ku hayay talada waxa ay ka yeelayeen dalalkii uu Talyaanigu gumaysan jiray intii aanay awoodiisu burburin ee kala ahaa Soomaaliya, Eritrea iyo Libya. sanadkii 1950 Ingiriisku wuxuu ogolaaday gobolkii waqooyiga ee Soomaalida ee uu markaasi xukumay in uu raaciyo gobolka kale ee koonfurta si ay gobonimadooda u qaataan sanadkii 1960 iyaga oo labada gobol la magac baxay Jamhuuriyadda Soomaalida. dhinaca Kenya marka laga eego wadaninimada iyo qiirada ku jirtay Soomaalida degan NFDI ahayd mid xoog weyn haddana wixii uu ka qaban lahaa Ingiriisku fulinta iyo hirgelinta himilada dadka NFD waxa ka hor joogsaday danihii xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ku saabsanaa ee uu Ingiriisku ku qabay dalka Kenya. tallaabooyinkii ay qaadanayeen Ingiriiska iyo dawladihii kale ee xoogga weynaa ee ka talinayay geeska Afrika waxa ay ahaayeen tallaabooyinkaasi kuwo ku xidhnaa xoogag iyo dana kale oo dibadda ahaa ma ay ahayn tallaabooyinkaasi buu yidhi Professor Lewis kuwo lagu eegayay amaba lagu ilaalinayay danaha iyo wanaagga dadka Soomaaliyeed. haddaba isaga oo cuskanaya taariikhdaasi dheer ee uu sii tixraacay waxa uu Professor Ian Lewis aaminsan yahay in Ingiriisku uu ku jiray dalalkii mas'uulka ka ahaa qaybinta ummadda Soomaaliyeed inkastoo ay la tahay in ay jireen xooga kale oo iyana arrintaasi wax kaga jiray. 15 bishii Oktoobar sanadkii 1969 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku mareeyay magaalada Laascaanood waxaana Allah u naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii Oktoobar. isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu bariyin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. 1974 oo sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii wadanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan.
هذا كما كوري كران سلاحي وحيالا ووينو كعنكو قبطي بلسي وحانو مدان ميد كتابتو سلاحي وحوينو وحي نوان كرانين إن ذاتك الصومالي دا وأولتو هردي إنو هردو كتوصي ذاتك الصومالي دا وأولتو أوغين إيانا ذات أحان أودو دا iyo wada khayraadka ku jira iyo iyaga naftoodu waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midnimo ka soo tilmaamana matalan waxaan noo garan karayaa Soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kaleeto afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii af Soomaaliga la hirgeliyey degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay dadkana waxay u hanweynaayeen waxyeelada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen sugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay kamid ah heesahaasi midatan wax badan aan ka hadlay arrintan ana kala taliyay shacbiga Soomaaliyeed dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay laga maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinahay shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan faa'iido u keenayo soo jirin talabaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobkii bilagaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka fool xun jira kuwiya la dhacaya riyaa laga qadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin fool xun weeye aad iyo aad fool xun arrintaas waan ka hadlay hadda ka hor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalaalaysanay qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa kee banaanta ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka waantoodaan arrintaas tan kaleeto waxay la tahay nool waa ogyahay baahi badan baa jirta baahidan hadda ka hor baan jiray biyo sacbada looga dhigay haddaynan u jeesanin intaan xabada isku jeedno inaan dalkeena wax ka soo saarno oo lugtiin laga soo saari karo beeraha laga soo saari karo badda laga soo saari karo xoolaha laga soo saari karo haddayna xagga u jeesan ee aynu inagu isku jeedno waxa iman doonta ayaanu la isqono haddii markabkii jino la sugu jiray waxaad moodaa inaanu markaanu qaldaad samaynay inayn isagana waxba ka soo soconin marka soo beerahayna iyo baddeena iyo xoolahayna isma wadana waxaa loo baahay halkaas in loo leexdo oo fidnadana laga baxo khayr ku jira fidnada ma jirto khaliya adduuntoona aad baan ugu codcelinayaa aniga oo runtii ka urxun in hadda ka hor 100 goor inta ka hadlay haddana aad moodaa in aad jira u siin haddana waan ku xajinaya waan ku codcelinayaa inay u dhaqaaqaan inay beerahooda fashaan badooda ka kalluunsadaan xoolahooda dhaqdaan dhibaatada tan ka baxaan ee dagaalka xabadana ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkeynaya ururada gargaarka ka shaqeeya dalka Soomaaliya waxay ugu baaqeen jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa in ay u dirto dalka ciidamo ilaaliya shaqaalahooda gargaarka hadal ay ka soo saareen magaalada Washington iyagoo ku hadlayay magac ilaa iyo 20 urur oo samafal ah ayay sheegeen in laga yaabo in shaqaalahooda ay kala baxaan dalka Soomaaliya haddii xaaladdu ay ka soo reen weydo bishii December ee sanadkii 1992 ayaa dawladda Mareykanku waxa ay ku dhawaaqday inay ciidamo u dirayso dalka Soomaaliya taasoo ay ogolaadeen golaha ammaanka ee jamciyadda quruumuhu howlgalkaas oo loogu magac daray Operation Restore Hope amaba howlgalkii rajo soo celinta suntay go'aankaasi la gaaray golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa ay qaaday codbixin aan horay marnaba loo arag markii ugu horeysay ayaa jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa go'aan ay ku gaadhay inay fasaxdo xoog in lagu qabsado waddan ka mid ah jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa taasuna ay ku leedahay xagga bini'aadanimada
laakiin marka loo eego dagaalkii gacanka golaha ammaanka ee jamcadda quruumaha ka dhaxaysa gacan weyn ayay ku yeelan doonaan sida loo maamulayo amuurtaas xogayaha guud ee jamcadda quruumaha ka dhaxaysa Dr. Badrus Qaali